xaas ayaan qabaa run ahaantiina way cadho badan tahay kol iyo laba toona maahe cadhadeedu waa ay taagan tahay toddobaad hadday caadi noqoto toddobaadka kale way isbedelaysaa waan ku kadeedanahay waana u dulqaadan laahay waxa ay ka cadhooto kuma sameeyo marka sheekow gabadhaas haddii aan u adkaysan waayo furitaankeedu ma qalad buu igu yahay haddaan furane ma kuwaan toobaysaa carruur ima haysee alxamdulilah dabcan markii guurka shareecadeennu ay ka hadlayso raggana waxaa la yidhaahdaa ha laga guursado man tardawna diinahu wa khuluqa diintiisa iyo dabci wanaagiisa dumarkana nabigu wuxuu yihi ragga markuu la hadlayay fadfar bidaati diini waalkhuluq qofka diintii alla ka cabsigana leh dabeecaday dad kula dhaqantana leh diintuna qofkii xuduud iyo xakameyn bay u samaynaysaa dabeecadduna dadkii la dhaqankoodii bay wanaajinaysaa walahi waa qofku inuu cibaado badan yahay lakiin camal xun yahay qofku inuu camal wanaagsan yahay dabeecad wanaagsan yahay laakiin uusan diinta ku ficnayna way dhici kartaa walidaalika shareecadeennu waxyaabaha miisaanka aakhara ugu culus waxay ku dartay alkhuluq alxasan dabeecadda wanaagsan dabeecadda wanaagsanina waa dadka dhibkaaga inay ka nabad galaan dadka dhibkoodana aad u dulqaadato wixii aad tari kartana aad tarto saddexdaa qodob baa asaas u ah saas darteed halkan waxaa ka muuqanaysa ninka sida uu sheeganaya hadday run tahay kuwo lamida way jiraan oo xagga dumarkii dabeecaddoodii lala dhaqmi layahay kuwa raggii dabeecaddoodii lala dhaqmi lahayna way jiraan xaaladdu hadday sidaa noqoto qofkuna u sabri waayo iyadina isbedeli weyda waana abuur baa ka horreeyey say soomaalidu tiraahdan ay noqoto dembi ma aha inay kala tagaan gurigu fa imsaakum bimacruufin oo tasriixun biixsaanin wey si wanaaga in lagu wada joogo iyo in lagu wada joogi kari waayo intii laisku dambaabi lahaa iyadoo dad waaweyn la yahay baa laysu yimide la kala danaysto qof walba qof ay isfahmaan oo isla jaan qaadi karaanna allaha u fududeeyo bilahi towfiiq